أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي سبحانه وتعالى ما دام صفاتك أي تلمامها وليهي وإن أبوري وإن ليهي وإن معموله ونعمي وناك استوي نسيي وحق إنه يقول لي يا رب سبحانه وتعالى إنه ينقنا الدوام الدبا وإنه حقيقينه ujeedada ilaahay inoo abuuray saaxiib wanaagsan dooro waa dantaada saaxiibka xunna iska ilaali oo ka fogow qofka muuminka ahi hadduu taagan yahay hadduu fadhiyo hadduu jiifo hadduu soconayo hadduu arrin adduunye ku jiro hadduu masaajidka fadhiyo hadduu goobtiisa ganacsi dhex fadhiyo waa mid aan marnaba ilaahay subxaana wa tacaala aan ilaabin qofka masaajid ilaahay daraaddii u dhisa ikhlaasan magac ku dooni maayo maamuusna kuma rabo manfaca adduunyana hadalkeeda baddaa ilaahay buu wax kaga doonayaa ilaahay wuxuu ku abaalmariyay inuu guri jannada uga dhiso ina alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat watawaasaw biاlxaqi watawaasaw biالsabr afartaasi arrimood waktigu waa qaali oo anigaa ku dhaartaye ha ku dhammaada weeyaan macnaheedu iimaan camal saalixa sabir aad ku sabirto wanaagga xumaanta aad ka sabirto qadarada ilaahay u xanuujiyana aad u sabirto iyo wanaagga ilaahay subxaana wa tacaala adiga uu kugu galladaystay inaad dadka kalena u gudbiso bakhayl aanad ku noqon abu hurayra radia allahu canhu wuxuu soo maray dadkii oo suuqa jooga oo ku mashquulsan howlihii adduunyo beec iyo shiraa inay wax iibiyaan iyo wax kala iibsadaan wuxuu ku yihi ayuha annaas antum haa huna wa miiraahu nabiyikum yuqsamu fi lmasjid dadoo halkanaad fadhidaan dhaxalkii nebigiinana waxaa lagu qaybinayaa masaajidka dad baa masaajidka yimi iyagoo u malaynayey xoolo uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka tegay masaajidka in lagu qaybsanayo waxay arkeen masaajidkii oo qur-aan lagu akhrinayo qur-aan lagu baranayo masaajidkii oo xalaqaad cilmi ay ka ogan yihiin oo ay ka socdaan waxay ku soo noqdeen abu hurayra radia allahu canhu waxay dhahan yaa abaa hurayra inamaa taquul abu hurayra waxaad sheegaysay mee masaajidkii kumaanaan arag wax xoolaa lagu qaybinayo wakula insaanin alzamnaa طaa'irahu fii cunuqihi ilaahay baa wuxuu yidhi qof walba waxaanu qoorta u sudhnay camalkiisa waxaanan u soo saari doonaa maalinta qiyaamana soo hordhigi doonaa isagoo ah qoraal uu akhriyo iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba waxaa la odhan doonaa akhri qoraalladii lagaa sameeyey naftaadaa maanta kuugu filan عدك حسابي أديكو قرنقص أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaanu shaki ku jirin qofka bani aadamka ah qofka muslimka adduunyadan dusheeda ku nool inuu yahay qof la nool dad kale oo ma aha qofka bani aadamkaahi mid kelidii noolaan kara ilaahay baa ku beeray subxaana wa tacaala inuu dad kale la noolaado inuu adduunyadan dusheeda ku yeesho saaxiibo iyo kuwo kale
oo uu weheshado. waxaanaynu ogsoonnahay waa midaan haba yaraatee aan qarsoonayn saaxiibbadu inay leeyihiin qaybo. waxaa jira saaxiib wanaagsan oo ka shaqaynaya dantaada iyo wanaaggaaga horumarkaaga. waxaa kaloo jira saaxiib xun oo xumaanta kuugu yeedhaya, tusaale kuugu noqonaya, hagardaamo iyo khasaare mar walba kula daba socda, iyadoo ay tahay qof waliba arrinta noocaasa oo aad dantiisa inuu ku garto caqligiisa iyo garaadkiisa fiican ayaa haddana waxaa ka mid ah allah ina abuuray subxaana wa tacaala raxmaddiisa iyo nebigu ilaahay subxaana wa tacaala inoo soo diray nasteexadiisa iyo wanaagga uu inagula taliyey in aada loo dhiirigeliyey qofku inuu lahaado saaxiib fiican, inuu doorto saaxiibkiisa. qofka inay hadaf u tahay dadka faraha badane la nool ee kolleyba saaxiibba uu ku yeelanayo saaxiib fiican inuu ka doorto oo uu la rafiiqo maalmaha kooban ee adduunya dusheeda u joogo, uu iskana ilaaliyo saaxiibbada aan wanaagsanayn. doorashada saaxiibtinimadu waxay leedahay asaasiyaad iyo asallo sax ka dhigaya. haddii kuwaasi la waayo waxay noqonaysaa mid hawada ka dhisan oo aan dhismaheedu aanu sii jirahayn, khasaare iyo xumaanna mar walba looga dhaadhaco. waxay tahay qofka muslimkaa, aniga iyo adiguba, inaynu marka koowaad qofka aynu saaxiiba ka dhiganayno uu noqdo qof ilaahay daraaddii aynu ku doorannay, ilaahay daraaddii aynu ula saaxiibnay, ilaahay daraaddiina aynu ula walaalownay. nebiyuna maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo taa inugu dhiiri gelinaya waxa uu tilmaamay 7 noocoo dadka ka mid ah. maalinta qiyaame qoraxda la soo dhoweeyey, xaaladduna ay adag tahay in maalintaasi loo hadhayn doono carshiga ilaahay subxaana wa tacaala. qoraxdaa adagee dadka kaga dhididisay iyagoo ay ka badbaadi doonaan. 7daasi waxaa ku jira warajulaani taxaabbaa fi llaahi ijtamacaa calaa dalika watafaraqa calayh. waa 2 qof oo ilaahay daraaddii isu jeclaaday oo saaxiibtinimadooda, wada socodkooda iyo isu dhowaanshahooda waxaa sababa ay tahay ilaahay daraaddii. jacayl ilaahay u qabaan, weynayn ilaahay subxaana wa tacaala ay weynaynayaan. qofkan oo ku qancay qofkan inuu yahay qof muumin ah, qof ilaahay u hoggaansan, qof ilaahay raalli gelinaya, qof ka qayb qaadanaya isagana iimaankiisa kor inuu kaco, tadayunkiisa iyo dhaqankiisa diineed inuu ziyaado u kordho, qof hormood ugu noqon kara iyo tusaale khayrka iyo wanaagga isagoon u sheeginba marka uu arko arrintaasi ay raadaynayso oo kaga dayanayo. wanaaggaas alla daraaddii ayay u kulmeen, xaaladdaasi iyagoo ku jira ayay kala tegeen. safar baa kala kaxeeyey, ama geeri baa kala kaxaysay, ama duruufaha kale ee noocyadoodu ay aadka u faraha badan yihiin. waxaa loo hadhaynayaa maalinta qiyaame, carshigaa loo hadhaynaya. ilaahay baa subxaana wa tacaala nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo aynu garanayno inuu yahayba rasuulkii lagu soo dejiyey waxyiga, isla markaana ahaa qofkii u horreeyey ee muslimka ahaa ee ilaahay subxaana wa tacaala sidaa dhammayska tiran ugu hoggaansamay. ilaahay baa u dardaarmay saaxiibka fiican inuu yeesho oo dadka intooda wanaagsan inuu la fadhiisto. waxa ilaahay subxaana wa tacaala uhi wacbud rabbak, wuxuu ilaahay subxaana wa tacala wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiy yuriiduuna wajhah walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinata alxayaati addunya. ilaahay wuxuu leeyahy isagoo nebi maxamed la hadlaaya, waxaad naftaada ku sabir siisaa la saaxiibka, la fadhiisiga, la socodka iyo la rafiiqa kuwa ilaahay subxaana wa tacaala ku xidhan, waa saaxiibada wanaagsan, kuwa ilaahay subxaana wa tacaala caabudaya ee baryaya, ilaahay xusaya in ilaabahayn gelinka hore iyo gelinka dambaba. indhahaagu yaanay ka tallaabin oonay u tallaabin saaxiibbada xunxun ee saaxiib adduunye ah oo dhaldhalaal iyo qurux adduunye haya ama magac iyo madaxtinimo iyo waxyaabahaasi. taasi ha ku dooranin adigu saaxiibbada, waayo adduunyadu way suulaysaa, wixii iyada lagu saleeyaana sidaasuu ula suulayaa, wuu ula baaba'aya. walaaltinimada iyo saaxiibtinimada adduunye ku salaysani ma daa'imayso, meesha way ka baxaysaa, waxaa ka hadhayaana waa khasaare. laakiin walaaltinimada iyo saaxiibtinimada ilaahay daraaddii ahi waa mid jiraysa ilaa yowmi alqiyaama. sariire iska soo horjeeda oo jannada dhexdeeda ah ayuu ilaahay dejin doonaa. halkaasi ayay ku sheekaysan doonaan saaxiibadii wanaagsanaa, oo iska waraysan doonaan
axwaashii adduunyada inta ay joogeen ay soo mareen iyo waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku siiyey naciimkaa qiimaha leh ee maalinta qiyaame xaaladdu ay adag tahay ilaahay subxaana wa tacaala iyaga uu ku maamuusay ee rabbi subxaana wa tacaala uu u dooray ku dooro saaxiibka diintiisa iimaankiisa alla kacabsigiisa akhlaaqdiisa garaadkiisa iyo caqligiisa dadnimadiisa iyo wanaaggiisa arrinta noocaasi waa inay tahay mid kuu qiimaysan ma aha qofka muslimka ahi mid saaxiibkiisa aan ka fikirin cidda uu ka dhiganayo sida u dooranayo si cashwaa'iya oo aan lahayn qorshe cid uun iskala saaxiiba qofka muslimkaa caqliga lihi saasi maaha waayo wuxuu garanaya qofka muslimka ahi ilaahayna subxaana wa tacaala u sheegay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam in fara badan uu ka warramay saaxiibku saaxiibkiisa inuu ku leeyahay raad aad iyo aad u weyn saaxiibku yasxabu saaxibahu saaxiibkii wuu guraa wuu jiidaa ama xagga khayrkii wanaagga ayuu u jiidayaa biqowlihi wa ficlihi odhaahdiisa iyo muuqaalkiisaba wuu ugu jiidayaa ama wuxuu u jiidayaa xagga sharka iyo xumaanta waxa ilaahay raalli gelinaya ama waxa ilaahay ka cadhaysiinaya waxa ilaahay u jecel yahay ama waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu necab yahay horumar buu sabab ugu noqdaa ama wuxuu sabab ugu noqonayaa dibudhac iyo habsaan iyo khasaare nabiyuna maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu saaxiibka inaga siiyey tusaale qof waloo inaga midiba uu fahmi karo uu ku garan karo saaxiibka wanaagsan iyo qiimihiisa iyo saaxiibka xun iyo khatartiisa wuxuu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam mathalu ljaliisi الصaalix wa jaliisi suu ka xaamili اlmiski wa naafiki اlkiir saaxiibka wanaagsan iyo saaxiibka xun tusaalahoodu wuxuu ka dhigan yahay qof sida miskigu waa uduga nooca ugu qaalisan oo ugu qiimaha badan waa sayidu tiib iyo qof buufimo afuufaya dadka biraha tuma midiyaha iyo gudmaha iyo waxaa sameeya buufimadan dabka ay ku shidaan si ay birtu u caddaato garaaceedu ugu suurto galo faxaamilu lmiski ima an yuxdiyak wa ima an tabtaaca minhu wa ima an tajida minhu riixan طayiba qofkaa miskigii uduga xambaarsan wuxuu arrinkiisu u dhaxeeyaa inuu ku siiyo oo adoon adigu wanaagba u gelin saaxiibkii wanaagsanaa inuu wanaag kuu galo iyo inaad ka bedelato oo miskigaad wax kaga bedelato saaxiibkii wanaagsanaa inaad wanaag isdhaafsiisataan ood wanaag farto isna uu ku faro khayr aad u sheegto isna uu kuu sheego tusaale aad ugu noqoto isna uu kuugu noqdo cilmi uu ku baro adiguna aad barto aad xusuusiso ilaahay subxaana wa tacaala isaguna uu ku xusuusiyo wa ima an tajida minhu riixan طayiba ama ugu yaraan intaad la joogto qofkaa miskiga sida caraf wanaagsan baa kaa soo gaadhaysa oo naftaadu ay ku raaxaysto qalbigaaguna uu ku dego saaxiibka wanaagsani waa saasoo kale intaad la joogto isagoo qur-aan akhrinayaad maqlaysaa isagoo ilaahay xusaya inta aad la joogto wax fiican baad ku arkaysaa isagoo salaada marka la eedaamo xagga masaajidka u degdegaya isagoo salaaddii sunnahay tukanaya isaga oo sadaqad bixinaya isagoo dadka wanaagga faraya xumaanta ka reebaya shakino kuma jiro arrinta noocaasi inay ku raadaynayso saaxiibka xun tusaalihiisu waa kaa buufimada afuufaya haddaad ag fadhiisatood la rafiiqdo maxaad ka faa'idi doontaa ima an yuxriqa hiyaabak inuu maryahaaga gubo saaxiibka xunna diintaadu gubaya iyo iimaankaaga iyo aakhiradaada wa ima an tajida minhu riixan muntina ama ugu yaraan urqarmuun baa kaa soo gaadhaysa saaxiibka xun ugu yaraan wax xun uu samaynayaad arkaysaa xumaantiibaa foolxumadeedu qalbigaaga ay ku yaraanaysaa marka dambena xaaladda waxay ku dambaynaysaa inaad samayso xumaan baad ka maqlaysaa isagoo ku hadlaaya laqwi isagoo caytamaya isagoo dadka xamanaya isagoo isku diraaya isagoo ku hadlaya hadal ilaahay subxaana wa tacaala aanu jeclayn raallina aanu ka ahayn arrinta noocaasiina dhegahaaga marka ay ku dhacdo qalbigaaga ayay u gudbaysaa ugu yaraan qalbi madoobaad iyo qalbi qalal iimaankaagu inuu daciifo iyo khushuucdaadu inay yaraato ayaad ka qaadaysaa taa macnaheed waa maxay saaxiib wanaagsan dooro waa dantaada saaxiibka xunna iska ilaali oo ka fogow qofka aad la saaxiibto ayaad la diin noqonaysaa oo aad la dhaqan noqonaysaa waa xaqiiqa waaqiciya taasi waana xaqiiqa sharciya rasuulku calayh salatu wasalaam inoo sheegay almaru calaa diini khaliili qofku wuxuu la diin noqdaa oo uu la dhaqan noqdaa saaxiibkii falyandur axadukum man yukhaalil midkiin aad ha uga fiirsado
cidda uu la saaxiibayo iyo cidda uu la rafiiqaayo. saaxiibku saaxiibkii uu bedelaa, ama xagga khayrku u bedelaa u jiidaa, ama xagga sharka iyo xumaanta ayuu u jiidaa. saaxiibku saaxiibkii uu raadeeya dabeecado iyo dhaqamo qofku aanu lahaan jirin ayuu yeelanayaa. waxa sabab ugu noqdayna oo qof uu la saaxiibay dhaqanada iyo dabeecadahaasi lahaa. nicmo ilaahay oo weyn weeye inuu ilaahay saaxiib wanaagsan ku siiyo, khayrka ku tusiya, kugu dhiirigeliya, hormoodna kugu noqda. saaxiibka xunna ilaahay subxaana wa tacaala inuu kaa badbaadiyo. adna waxaa kula gudboon nicmadaasi inaad u xadhka xidhato oo aad u tafaxaydato oo nicmadaasi aad raadiso. waxaa ka mid a qawaacidda iyo hadallada caanka ah ee dadka caqliga leh ee basharka ka mida ay isku waafaqeen. qofka haddii la doonayo in la qiimeeyo waxaa laga qiimeeyaa saaxiibkii. wuxuu uhi cabdillaahi bn mascuud almaru bikhidnihi, qofku wuxuu ku miisaaman yahay oo lagu miisaamaa lagu qiimeeyaa saaxiibkii baa lagu qiimeeyaa. haddii qofka saaxiib xun uu raaco iyo qof aad iyo aad u liita oo aan diin iyo adduunye midnaba aan ku wanaagsanayn, isagana marka la qiimeynayo waxaa la odhanayaa isaga ayuunbuu la nooc yahay. waa mid ilaahay dadka uu ku beeray, qalbigoodana ilaahay subxaana wa tacaala uu geliyey. laa tas'al can ilmar'i was'al can qariinihi. wuxuu ihi ninkii caqliga badnaa ee gabyaaga ahaa ee carbeed, qofka haba waraysanin oo dadka haba ku odhanin hebel waa sidee, diintiisu waa sidee, akhlaaqdiisu waa sidee, ammaanadiisu waa sidee. waxaad waraysataa un cidda uu la saaxiibka yahay. haddii lagu sheego saaxiibbo xunxun inuu leeyahay, iyaga ayuu la xukum yahay, iyaga raaci. mar haddii isagoo xaalkooda og sidaasi uu ku raacay, saana uu kula rafiiqay, saana uu kula saaxiibay. fa ina alqariina bilmuqaarini yaqtadi. waayo qofka uu la saaxiibo uu la rafiiqo ayuunbuu ku daydaa. waa mid ilaahay subxana wa tacaala bani aadamka uu ku beeray. ilaahay subxaana wa tacaala saaxiibbo fiican haynoo dooro oo hayna waafajiyo saaxiib wanaagsan inaynu dooranno. imisaa qof iimaankiisu uu sarreeyey, alla kacabsigiisuna uu badnaa, cibaadadiisuna ay xoogganayd, akhlaaqdiisuna ay wanaagsanayd, mar qura xaaladdiisu ay isbeddeshay oo noqday qof xagga kale ka rogmay. markii arrintaa dib loo raacayna sababtu ay noqotay saaxiib xun. saaxiibkaasi xun oo si toosa ay u wada xidhiidheen amaba se qoraal ay ku wada xidhiidheen, mid uu akhriyey buugaagtiisa iyo mid uu daawaday muuqaaladiisa, mid ay wada fadhiisteen oo ay isuba yimaadeenba. imise ayaa qof xaaladdiisu aad ay u liidatay oo ahaa gaal ama iimaankiisu uu daciif ahaa, muslim ahaa, cibaadadiisu ay yarayd, akhlaaqdiisu aanay wanaagsanayn, mar qura la arkay iyadoo xaalkiisu isbedelay. sababtuna ay tahay qof wanaagsan iyo saaxiib fiican in ilaahay subxaana wa tacaala uu u sakhiray. waxaad saaxiib ka dhigan kartaa dad aydaan isba soo gaadhin. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddii aad ku dayato oo dhaqankiisii iyo akhlaaqdiisii wanaagsanayd, cibaadaadkiisi iyo camalkiisii aad akhrido amaba si aad dhegaysato, cid lala saaxiibo lala rafiiqana isaga ayaa u fiican. haddaad akhrido taariikhdii saxaabada iyo wanaaggoodii iyo dhaqankoodii iyo akhlaaqdoodii fiicnayd, saaxiibbay kuu noqonayaan iyadoo aad iyo aad u kala fog tihiin. cid lala rafiiqo lala saaxiibana nebiyada dabadood iyaga ayaa u fiican. waxaa la gudboon dadka waalidkaa ubadkooda inay eegaan oo isha ay ku hayaan cidda ay la saaxiibayaan. waxaa la gudboon dadka waalidka ah ubadkooda inay u dooraan saaxiib wanaagsan. qofka isagu qaan gaadhay mukalafiina inuu doorto saaxiib wanaagsan. saaxiibku aniga iyo adiga iyo qof walba raad ayuu ku leeyahay. aynu xulanno saaxiibbada wanaagsan ee tala fiican ina siinaya, horumar adduunyo iyo darajo iyo maamuus aakhiro sabab inoogu noqonaya. ilaahayna subxana wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa taasi inuu inoo fududeeyo, uu inoo yasiro, ilaahayna go-aankeeda uu ina siiyo. wallahu aclam. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره